تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كل ما تقولن كأن وخاصو يهي ما ركتاني هوينك gabadha muuminada ee muslimada makaanadeebay diinta islaamka ay ku leedahay, halkee diinta islaamku ay dhigtay, maxaase laga rabaa haweeneyda muslimada, maxaase laga rabaa, halkeese nolosha bini aadankana ay haweenku ay kaga jiraan. ilaahay caza wajalla haweenka si gaaruu ilaahay u ammaanay oo qur-aankeena kariimka ah haddaad maqasheen suuratu ibraahim iyo suuratu muxamed iyo suuratu yuunus iyo suuratu yuusuf iyo suuratu nuux iyo suuratu huud, kadalika qur-aanka waxaa laynoogu sheegay suuratu maryama. bal qur-aanka kuma taalla suurad loogu magac daray suurat الrijaal, laakiin waxaa ku taalla suurat الnisaa. aabaheen aadam calayhi الsalaam markii ilaahay uu abuuray istiqraar buu nebi aadan u waayo, naftiisii way xasili weyday. deedna markaasaa feedhiisa bidixintoo laga soo qaaday baa laga abuuray xawaa, ummana xawaa, liyaskuna ilayha, si markaa oo u xasilo maqaasida maaragtaane zawaajka waxaa ka mid ah in labada qof ay isku xasilaan. haweenku keligood ma noolaan karayaan, ragguna keligood ma noolaan karayaan. khalqigan ilaahay abuurayna daa'iman ilaahay laba nuuc baa ilaahay ka dhigay, laba nuuc. وخلقنا من كل زوجين لعلكم تذكرون baa ilaahay yidhi. khalqigan adduunyada aan arkayno oo dhan mid walba waa laba nuuc weeyaan, habeen iyo maalin, rag iyo haween, nolol iyo dhimasho, farxad iyo murug, qani iyo faqiir, janno iyo naar, muslim iyo gaal. ilaahay jalla wacalaa isagaa nolosha sidaa ugu talagalay inay mar walba laba nuucoo iska soo horjeeda noloshu ay ahaato. marka haweenkuna keligood adduunka dusheeda inay kuma noolaan karayaan waa mustaxiil, ragguna keligood ma noolaan karayaanoo waa mustaxiil. markaasaa kaalinta haweenku nolosha ay kaga jiraan baa weliba muhiimad gaara la siiyey. limaada? lianna warshada bini aadanka lagu dhex sameeya waxay ku taallaa caloosha hooyaday ku taallaayo caloosha ragga dhexdeeda kuma taallo. oo hooyadu marna waa warshad oo ilmihii caloosheeda lagu dhex abuuraya ilmihii. qur-aanka ilaahay noogu sheegay: walaqad khalaqna al-insaana min sulaalatin min tiin ثuma jacalnaahu nudfatan fii qaraarin makiin ثuma khalaqna الnudfata calaqatan fakhalaqna alcalaqata mudqatan fakhalaqna almudqata cidaama fakasawna alcidaama laxma ثuma ansha'naahu khalqan aakhara
فتبارك الله أحسن الخالقين جل جلاله. الله أكبر. بني آدم كان أبوركيسي هراء إلهي وحان كسمين الطين لوبا أيان كسميني والنبي آدم عليه السلام عرض النبي آدم لقى أبورين أفرتن سنة ملائكته مدى ملك سوقاديين أفرتن سنة نبالي والله لاغيو والله اسكول لاغيي أفرتن سنة نبالي والله صوري أو صورك آيات تاقنايو وإنقيقيي مركاسا إلهي بقولي اللباتن سنة كذب أي النبي آدم عليه السلام روح لقو أفوفي آدم أبوركيسو هالكاسا لصومريي أما بشر ككلا أودن بني آدم ككلا أودن إلهي وحيري وحن كسمين با إلهي النطفة بيها يرى اسكو تغايا بيها سوما ركتاني هاوينك يرقى اللبضو با أي كإيمان أيام والرحم كأي كل ميام أي قفك بني آدم كاللغا سميي حديث كي صحيحة هان النبي وكيلها أفرتن كهرما ركتاني والنطفة وعن دوفير أو ميلتها اللو الرحم كدحتها اللو ويان أفرتن كدحان أبو النبي قول ما ركتاني ووصلد يروهيلبا أفرتن كدحان أبو النبي قول وحنجرير أو ديغا أفرتن كصدحان أبو النبي قول ووصلد يروهيلبا ثم أنشأناه خلقا آخر وإلهي فكسونا العظام لحما ثم مركز بن آدم كإلهي الله فيه يدبكي انتو الله قاضي أيا الله أبو رياء الله وينيا بقولي الله باتنكا هبين علمه مركو علوشيسا علوشه يو صدح دا مرحلة والمركة وصومرو أيا ملك لوسو ديبا يا الروح دا لأن ملك مركز الروح دا كو أفوفا يا مركز ملقاس علمها الروح دا مركو كو أفوفو أفر شيبا قفك الروح دا ما ركتاني علمها الروح دا قلي رحمك قلي أفر شيبا الله قرى يا أبو النبي قول عليه الصلاة والسلام أجشيسي مالنتا وأدوية دا كدمانا يكسو بيح دونو هبينك الروح دا لقو أفوف الرحمك هوية أيا الله قريا غني إيا فقير متكو نغنى هبينكاس الله قريا وأرزاق دا أدوية دا انت أوجوغ وحو عنج لهايو دان هبينكاس الله قريا شق إيا سعيد مقمد لي باني أو جنة قليا ومسا وقف خساري أو نار كدن بينيا هبينكاس الله قريا أبو النبي قول عليه الصلاة والسلام وحاكلو الله قريا ما ركتاني اللبي يددق متك أو نغنى يانا هبينكاس الله قريا أبو رسولك يري لأن مركز رحم كاسي كما يالا أبها علوشي سكما دحيا له هو يدا علوش يدو كل دحيا له لأن مركز هو يدو هل كاسي هاوشو أي كقبل ميسا متجبا كبلا ميا لفقرع با كبلا ميا وحكستا أوريا مركز عرفي ودقونا بيوايا يسا لأن مركز يصدح بلوض ودن هو يدو أي قلقلنا يسا لأن على الرحم كي دحديدا خلق وحا لغو أبوريا بشر بني آدم با لغو أبوريا وهاوينكم مرنا ومصنع وورشد ويا سقالك بلوض علمها علوشة أي كسدو وبين الحياة والموت بين هذا العلماء هاوينكم نلل يجيري انت أرد حيس أي كجران وولولي والبهار وحي مر والبكاف مروي فرح يسايا وحي لا دهي الماء آيات مردو أدلي دونتا مرنا ويمرقون وحي لا دهي مدراعي دونتا مسوات كهري دونتا هذا هو يدو أمش أي كل متن أبو النبي قيدي وشهيدد ويانو أجر الشهيد بالله قريا قفك أمش مركي كل متو أويني لأن علمه مركي علوش يدو كصوبحا مركا النفط أي كسو نقونيسا هذانا نلول كلا أيا أبلا ميسا نلول شيء أبلا ميسا نحريس تأيا قلبي يدا كو زيادة يسا ناس نوجنبا أبلا مي دونتا هرداد أيا كو يراني دونتا علمه هدو هبينك سوجيدا وإلا سوجيديسا هدو بكودنا وإلا بكونيسا هدو سيحدنا وإلا سيحانيسا هدو إسرغنا وإسلرغيسا ما سيحانيسو mana yeelaysa sida hadeetoole iyadu ay rabtee ilmaheega sidoo rabay ay markaa yeelaysa hadeetoole nolosha raggu kama warqabaan laakiin waa nolol haweenka u khaasa weeyaan ajar badan way ka helayaano maxaa yeelay riximkooga basharka oo dhan baa soo maraya oo waxa adduunyada dad joogo oo dhan ininka ayaa dhalay ininka ayaa ku soo tabcay ininka ayaa koriyo barbaariyay ininka ayaa naaska nuujinayay ininka ayaa maaragtaan la soo jeedayay aabuhu waxa soo hawla kama warqabe hawshaasi waxay khaas u tahay hooyada ayay khaas u tahay xaq hooyadana nabigu meel buu saaray oo nabiga ninba u yimid oo yiri dadkayga ayaa iigu xaq loo nusama fala marka hore ii sheeg marka uu nabigu ku yiri hooyada
haddana mar labaad buu nebiga ku celiyey haddana mar labaad buu nebigu ku yidhi hooyada haddana mar saddexaad buu ku celiyey haddana markii saddexaad buu nebigu yidhi hooyada deedna markii afraad buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aabbaha buu nebigu ku yidhi saddexda hore nebigu hooyuu sheegay hooyo inay xaqa koowaad la siinayo xaqa labaadna iyada uunbaa iska leh xaqa saddexaadna iyada uunbaa iska leh marka afraad buu nebigu yidhi aabbo nebi ciise calayhi salaam yaraan buu ku hadlay erayadii yaraanta markuu ku hadlay uu yidhi waxaa ka mid ahayd markuu qoomkiisa u sheegayay rabbigii inuu la soo dardaarmay wuxuu yidhi wabarran biwaalidatii walam yajcalnii jabbaaran shaqiya wuxuu aniga rabbiga ii amray oo maaragtaane rabbi igula soo dardaarmay intaan adduunyada ku noolahayna inaan hooyadayda maryamee cidlada igu dhashay inaan u samafalo ayaa lay amray walam yajcalnii rabbi igama yeelin aniga jabbaaran shaqiya mid jabbaara oo adag oo macsi badan oo kibir badan oo ahla naara aniga ilaahay igama dhigin buu yidhi laanna nebi ciise calayhi salaam isaga aabba lagama abuurin hooyo keliya laga abuuray hooyadana waa lagula dardaarmay maxaa yeelay hooyadu mansilad bay ku leedahay diinta islaamka nin saxaabada ka mida ayaa nebiga u yimid oo yidhi jihaad baan rabaa inaan aado markaa buu nebigu ku yidhi labadaadii waalid ma nool yihiin mise midkood baa nool maya hooyaday baa nool buu ku yidhi hooyadaa raalli may ka ahayd safarkan aad iigu timiday may raalli kamay ahayn buu yidhi markaa buu yidhi sow jihaadka aad rabta inaad aaddo sow janno kama rabtid haa janno uun baan ka rabaa markaa buu nebigu yidhi orodoo hooyadaa ku noqo iyada lugaheeda qabso oo raalli geli halkaa baad jannada ka geli doontaa adigu ye elzim rajlayha uma aljanna lugteeda qabo oo u duug oo adeec oo baari u noqo hooyada jannadaad ku rabtay inaad jihaadka aad ku hesho hooyadaabaad ka heli doontaaye buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka xuquuqda haweenku ay leeyihiin xaqa hooyadu ay leedahay xaqa gabdhuhu ay leeyihiin annaka nebi maxamed baa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam man caala jaariyatayni xataa tabluqa baa nebigu yidhi ana wa huwa ka haatayni fi ljanna ninka laba gabdhoodii ay u dhalatay buu nebigu yidhi ee labadaa gabdhood dar u geliyey ee asturay ee koriyey ee barbaariyey tarbiyadooda wanaajiyey aniga ninkaasi jannada sidaasaan isku nahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam labadaa farood buu nebigu isku qabto oo wuxuu yidhi aniga isagu jannada sidaasaan isku nahay buu rasuulku yidhi lama sheegin ragga haween baa gaar loo sheegay hablaha ayuu nebigu sheegay sal alla alay wasalam waayo habluhu ragga way ka naxariis badan yihiin way ka khidmad fiican yihiin way ka damqasho badan yihiin way ka xidhiidhin badan yihiin waalidku markuu gaboobo cidda hayn kartaa waa inan weeyaan hooyadu markay da'deedu ay weynaato aqalka ay ku noolaataa aqalka wiilkeeda maaha waa aqalka inanteeda ay ku noolaataa laanna haweenka ayaa qalbi jilicsan sifadaa ilaahay bay inagu abuuray caza wajal waa sifo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ini siiyey inay naxariistu qaalib inii noqoto lidaalika hooyadu 9 biloodna waa warshad caloosheedu 2 sanana maaragtaana ilmuha yari meel kale wax ka cuni maayo waxay iyadu cunto ayuu la cunayaa saa darteed baa dadka soomaalidu waxay yidhaahdaan waxa umusha udana baa ilmahana udana odayga markay islaanta u dhasho ilmaha cunto u soo dhig kama fikiree laakiin umusha maaragtaane ayuu muqmad iyo subag iyo malab iyo timir iyo raashin buu u dhigaa waxa uu leeyahay ilmaha yar ayadu wax ka cunaya waa run nafaqada hooyadu ay hesho ilmuhu wax ku leeyahay ilmuhu aabbo waxba ka cuni maayo laakiin hooyada naasaheedu ilmuhu ku noolaanaya 2 sano oo ku dhan markaasaa naaskaas hooyada habeenkii ilmaha yar hadduu kacuu qaylyu ooyo oohinta nuuca ay tahay hooyada garanaysa aabbuhu ma garanayo odaygu wuxuu leeyahay ilmaha yar naga seexi oo naaska naga siida naaska ku qabo waxay leedahay oohintani oohintii gaajada maaha gaaja ma haysee laakiin jirro ayaa hayso uu xanuunsan yahay haddana marka hore ilmuhu qayliyo ooy markaasuu ku odhan doonaa ilmaha yar naaska naga sii dee waa ka qayliyahan ka seexane markaasay odhanaysaa maytani gaaja ma haysee oohintani oohintii gaajada maaha
laakiin waxa uu leeyahay meesha aan jeefan ku kaadshe gowasha aan ku jiifo way qoyday iga bedel buu leeyahay dadna way ka bedeli markiiba hada bariyahana waxyaabo kale oo dal isku qabtaaba soo baxayba haddana markaas uu ooyaya la ilmaha yar maxay helay buu leeyahay markaaba muubuka markaas ay leedahay maya oohintii bugtaanta ma ahe lula ayaa hayso wuxuu leeyahay hurda ay haysay maama iseexi buu leeyahay dadna markaaba aqalka la galaysaa naaska intay ku qabatay seexinaysaa ilmaha yar oohin kaliya ayuu ooyayaa laakiin oohinta inta macnay sameynayso aabuhu ma fahmaayo inankuna walaalkiina ma fahmaayo adeerkiina ma fahmaaye hooyada baa fahmaysa laana sifada hooyada ilaahay baa galiyay tabaaraka wa tacaala marka haweenku makaanad ba diinta islaamka ayna dhigta makaanad weyn waa hooyo waa warshad waa naas muujiso waa barbaariso waa muallimad waa murabbiyad ilmuhu inta badan hooyo ag fadhiyaa aabba ma ag fadhiyo haday hooyadu saalixad ay noqoto gabar wanaagsan oo diin leh alla ka cabsi leh haday noqoto ilmuhu inta badan hooyada raacayaan ay ku dayanayaan laakiin hooyadu haday noqoto to aan diin danaynayn oo ilaahay aan ka baqayn oo ninkeedana aan adeecayn oo salaada aan ku dadaalayn haday noqotona ilmuhu inta badan sida hooyadu ay noqotay yeelaan baa leeyahay marka hagaaga haweenku ay noo hagaagayaan waxaad ogaataan mujtamac oo dhan bay noo hagaagaya walaalayaal laakiin haweenku bilcantu haday naga xumaato waxaad ogaataan kaligood ma xumaane mujtamaca soo socdo oo dhan bay naga xumaaday walaalayaal marka maamadu mar waa warshad mar waxa weeyaan waa murdica oo ilmaheeda ayada naaska nuujinaysa waxa la doonayaa naaska markaad nuujinaysa ilmahaagana haddaad karaysa inaad weysaqab ku nuujiso ayaa fiican haddaanad karayna markaad naaska aad ku qabanayso waa inaad bisanka u qabataa waxaa dhacday bari qisad nin boqora oo boqoradii muslimiinta soo maray ka mid ahaa ayaa u soo galay xaajiyadiisii marwadiisii buu u soo galay isaga oo maaragtaana aad u murugaysan oo naxsan markaasay ku tiri maxaad la naxday maanta waad naxsan murug baa kaa muuqatay boqoroo say wax u jiraan markaasuu ku yidhi inankeenii ayaa gaaladii uu la dagaalami lahaayee jihaadka uu ku qaaday ciidankiisii waa la soo jabiyey isagiina uu soo baxsaday buu yidhi markaasay ku tidhi warkaasi war la huba ma yahay iska fiiri markaasaa maalmo kadib haddana boqorkii oo waxaa qasriga soo galay aad u faraxsan marka xaaskiisii baa ku tidhi maanta aad baad u faraxsantahay say wax u jiraan ii sheeg waxa uu yidhi marka inankeenii gaaladii uu ka adkaaday uu ka guulaystay haniimo iyo xoolana uu soo qaatay uuna soo galay magaalada oo galabta soo galay uu soo socdaa deedna markaasay ku tidhi warkan dambaa saxa wuxuu yidhi adigu soo fadhiiso maalintii hore warka aan kuula imidana waad beenayso run been buu noqday warkii warkan dambe maanta aan kuu sheegayna waa sax baa tidhee sidee wax u jiraan balii sheeg waxay tidhi inankaygaa curad maalintuu calooshayda uu galan caloosh riximkayga aan ku hubsaday ilma inuu galay luqmad xaaraana afka inaan geliyaan ka ilaaliyey tidhi maalintii aan dhalayna markii aan daahirsaday tidhi naas ma nuujin ilaa naaska waxaa nuujinayay bay tidhi anoo weyse qabay tidhi marka cunuga tarbiyadiisii halka aan ka soo bilaabay inuu gaalo ka soo baxsadaa waa mustaxiil bay ku tidhi waa mustaxiil aabbuhu sidaa wax uma ogaan karo laakiin hooyada u og hooyadu hadday hagaagsan tahay ilmuhuna uu hagaagi hooyadu hadday ba'naatana ilmuhu uu ba'naan laba qisadoodu mar horena waan ka hadlay dhagaysta labada qisadood quraanka ilaahay ku sheegay tabaaraka wa tacaala waa qisad nebi nuux reerkiisa ka dhex dhacday iyo qisad nebi ibraahim calayhim assalaam reerahooga ka dhex dhacday labada nebi waa laba rusul ulul casmi bay ka mid yihiin nebi nuux qisada ku dhacday waxay ahayd qoomkii isaga loo soo diray waa la halaago waa la baabi'iyey islaantiisiina waa lagu daray inankiisii curadna waa la halaago waa lagu daray bal u fiirso waliba nebi nuux calayhi salaam markii qoomkiisa la halaagayay ilaahay baa u waxyoodoo ku yidhi an isnaci lfulka biacyunina
doon samaysa baa lagu yidhi markaasuu nebi nuux doonta wuxuu ku dul sameeyey buur dusheeda markaasaa lagu yidhi adiga iyo dadka mu'miniinta ee ku raacay doontaa fuula khalqiga ilaahay abuuray ee arlada joogana lab iyo dhidig ka saar doontaa wixii aanan fuulin oo dhan waa la halaagi baa lagu yidhi nuux calayhi salaam markuu muslimiintii doonta uu ku guray khalqiga adduunka joogayna loo dhawaaqeen layidhi laba iyo dhidig ha ka fuulaan ayaa inankiisii curad buu u yeedho wuxuu ku yidhi yaa bunaya arkab macanaa walaa takun maca alkaafiriin inankaygiioo doonta nala soo fuul kaafiriinta maanta macooda ha noqon maxaa yeelay adduunyada halaag baa ka dhacayo kaafiriinta waa la halaagayaa yaa bunaya arkab macanaa walaa takun maca alkaafiriin wiilkaygii yaraayow nala soo fuul doonta kaafiriinta macooda ha noqon laakiin inanku jawaabtuu bixiyey dhegayso qaala sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyowma min amri illaahi ilaa man raxim waxaala baynahuma almawju fakaana min almuqraqiin markaasaan inan nuux baa hadlo wuxuu yidhi buurtaa dheer baan ka fuulayaa biyaha imanaya aad sheegayso nuux baa u jawaabou ku yidhi laa caasima alyowma min amri illaah maanta amarka ilaahay cid ka badbaadaysaa ma jirto cid ilaahay u naxariistay mooyaane cid kale ma badbaadaysee maaha nebi nuux wuxuu yidhi biyaa imanaya bal amar ilaahay baa imanaya adduunka amar ilaahay baa imanaya maanta ciddii ilaahay u naxariista amarkaa ka badbaadaysee anu waxaanad ogayn baan ogahay buu ku yidhi doontaa ila soo fuul buu ku yidhi walaa takun maca alkaafiriin kaafiriinta macooda ha noqon ayagoo markaa wada hadlaaya ayaa biyihii iyo mawjkii iyo hirarkii biyaha dhex maray duufaankii deedna inankiisii uu qarqoomo halkiiba ku halaagsamayey nebi nuux markuu arkay inankiisii oo la halaagay ilaahay buu baryo wuxuu yidhi wanaadaa nuuxun rabbah qaala rabbi innabnii min ahlii wa ina wacdaka alxaqu wa anta axkamu alxaakimiin qaala yaa nuuxu innahu laysa min ahlik innahu camalun gayru saalix فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين نبي نوح بالله وحيودون لغو يدي يا نوح كان أهلكاga كمد ماهم با لغو يدي عمل قيس مواناك سنين ومواناك سن محل وجيدا إلهك أبوريك صادرتي من رمينين أديقنا شريعة هذه دين هذه النبي نمدادا من رمينين مركا أهلكاga كان كمد ماهنا با لغو يدي وحانا دوقوني علم أولهين هي ويدين با إلهي كو يدي sidii baa inankiisa markaa lagu halaagay qisadii waa taas aabbo ayaa cunugiisii ugu yeedhaya inuu badbaadiyo oo cunugiina iska diidan yahay qisada labaad waxa weeyaan waa qisadii nebi ibraahim calayhi salaam iyo wiilkiisa ismaaciil dhex martay ismaaciil markuu ibraahim uu soo galay maka waxa amar lagu siiyay inankaaga ismaaciil qaado xagga ula kacba lagu yidhi jamaraadka dhagax tuurka laga tuuro xajka mina ay ku taallo sida neefka xoolaha loo birayo inankaaga u soo biree waa waxyi weeyaan ilaahay baa u waxyooday markaasuu isa soo raaceen halkaa markay joogaan uu faraskii ka dhaadhacay ibraahiim ismaaciilna ka dhaadhiciyey ayuu ku yidhi yaa bunaya falammaa balaga macahu sacya قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين هل كان مركي وذا الجوغان بوشيغا وحو كيري وحان كو منامي أنيغا كو برينيا سيدا نيفك حولها الله برايا كو برينيا بل كتلا بحي بو كيري أرنكا محاد كقبتا محاد سيودا لحين يركي يرى جوابتو بحي دقيسو قال يا أبت افعل ما تؤمر بو كيري aabbahaygii wanaagsanaayow amarka lagu amray adigu yeel oo buuxi anigana waxaad arki doontaa buu ku yidhi inaan ahay mid adkaysto oo sabir badan inaan ahay insha allah ayaad arki doontaaye adigu amarka ilaahay buuxi buu ku yidhi kii hore nuux inankiisa wuxuu ugu yeedhayay inuu badbaadiyo waa iska diiday ibraahim calayhi salaam inankiisa wuxuu ugu yeedhay inuu gowraco oo sida neefka xoolaha loo bireeyo uu u bireeyo ugu yeedhay uu yeelo wuxuu ku yidhi aabba amarka ilaahay buuxi anigana waxaad ii heli doontaa inaan ahay mid adkaysto sabir badane waxaa la yidhi maxaa labada ubad u dhaxeeya labada ubad maaha farqigu waxa weeyaan waa labada hooye labada ubad kala dhashay weeyaan farqigu nuuxna waxaa dhashay islaan gaalnimadeeda qarsanaysay oo mushrikada ahayd oo ilaahay aanan aaminsanayn
oo nebi nuux dacwadiisii iyo risaaladiisana ka horjeeday ayaa wiilka nuuxna u tarbiyadaysay ibraahimna waxa u tarbiyadaysay inankiisa ismaaciil waxa u tarbiyadaysay haajara u tarbiyadaysay hooyo markii ibraahim uu cillo kaga dhaqaaqay tidhi ma amar ilaahay baad nagaga tagtay markaasuu ku yidhi haa markaabay tidhi ilaahay nama dayacaya iska soco hooyo ilaahay ku xidhan baa kana barbaarisoo tarbiyadaysay ka kalena waxaa tarbiyadaysay hooyo ilaahay aan aaminsanayn nebigana aan aaminsanayn baa tarbiyadaysay marka haweenow dhegaysta haddaad doonaysaan ubadku inay noo hagaagaan ininku hagaaga haddii aad doonaysaan ubadku inay naga xumaadaan gabdhuhu dee markay xumaadaan ubadkooguna way xumaanayaan ogaada limaada lianna mujtamaca waxa ay ku fadhiya waa ininka weeyaan dugsiga ilmo kasta uu ka soo baxayo hadduu sheekh yahay hadduu shariif yahay hadduu madax yahay hadduu faqiir yahay hadduu qani yahay hadduu dhakhtar yahay hadduu injineer yahay waxaa dad maanta magaalada dhex socdo oo dhan mid aynan hooye korinin ma jiro mid aynan hooye tarbiyadaynin ma jiro mid aynan hooye maaragtaane dhabtiisa ku qabani ma jiro hagaaga aad hagaagtaan haweenow mujtamac oo dhan baa inoogu hagaagaya xumaanta ama ba'naanta bilcantu ay naga ba'naato waxaad ogaataan mujtamac oo dhan baa naga xumaanaya asmaa binti yaziid radia allaahu canha markay inanteeda ay dhistay laylatu zafaaf habeenkii inanteeda ay hoynaysay dardaaran cajiibay siisay waxay ku tiri cushkii yaraayaad ku jirtay waad ka baxday ku tiri yani cushku waa aqalka shimbirta xush buulkii yaraayaad ku jirtay waad ka baxday ku tiri halka qisada maxaa laga fahmayaa bariga inantu aqalka kama baxayn inta aynan qaan gaadhin way khidmaynaysay dibadday u baxayso loo diranayay laakiin mar hadday inantu qaan gaadhay baaluqdo albaabka kama baxayn inay hooyadeediiyo dibadda wixii looga baahan yahay aabbaheed iyo hooyadeed iyo walaalkeed baa u soo qaadi jiray u soo adeegi jiray iyadoo aqalka kama baxayn aqalka waxay ka baxaysaa inanta maalinta la meheriyo ayaa ninkeedu intuu gacanta qabtuu la baxayaa waa halka culimmadu ay yidhahdaan saddex aqal bay haweenku leeyihiin aqalka koobaadi waa aqalka aabbaheed iyo hooyadeed aqalka labaadna waa aqalka ninkeeda aqalka saddexaadna waa qabrigeeda saddexdaa aqal bay haweenku leeyihiin afar aqal afraad haweenku male ay u baxaan male haba yaraatee haweenkeenna suuqa jooga sax maaha raggu inay suuqa joogaan weeyaan raggu suuqa waa inay ka adeegaan hooyada iyo inantu waa inay aqalada fadhiyaan maxaa yeelay haweenku way jilicsan yihiin in dibadda iyaka loo ogolaado maahina waa in la ilaaliyo aqalka lagu ilaaliyo oo aqalka lagu dhex xanaaneeyo oo adeegga dibadda ragga ayaa iska leh haweenku adeegga aqalka dhexdiisay leeyihiin iyaku mas-uuliyaddu waa mid bannaanka iyo mid aqalka dhexdiisa ta bannaanka ragga ayaa iska leh kasbiga raggaa laga rabaa aqalka ijaarkiisa raggaa laga rabaa dharka haweeneedu xidhanaysa ragga ayaa laga rabaa masaariifta reerka ragga ayaa laga rabaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa faranka dirhamka aad miskiin aad siinaysid iyo dirhamka maaragtaanay addoon aad ku xoraysay iyo dirhamka maaragtaanay ilaahay diinkiisa aad ku bixisay iyo dirhamka maaragtaanay reerkaaga aad ku nafaqaynayso dirhamka reerkaaga aad ku nafaqaynaysaa ajar badan oo ajar weyn ilaah agtiisa buu rasuulku yidhi waa fadaa'il nebigaa noo sheegay sal alla alay wasalam marka gabadh haweenku aqalka inay saddexdaa aqal bay haweenku leeyihiin marka buulkii aad ku jirtay ku tidhi oo asmaa binti yaziid dardaaranta inanteeda ay siinaysa dhegayso buulkii aad ku jirtay waad ka baxday tidhi waxaad ku hoyanaysaa caawa aqalkaa weligaa hore umaad arkin shakhsiga aqalka aad kula keliyoobi doontana horay umaad arkin bay ku tidhi shakhsiga aqalka caawa aad kula keliyoobi doonto caroosadu carooskay la keliyoobaysaa waxay tidhi ninkaadaas haddeetoola mas-uuliyaddii isagaa la wareegee laakiin waxay ku tidhi indhihiisa ilaali waxay ku tidhi indhihiisa ilaali oo sankiisa ilaali oo dhegtiisa ilaali dhul u noqo cir buu kuu noqoni hooyo u noqo
aabbuu kuu noqoni walaashii oo kale u noqo walaalkaayoo kale kuu noqonaya hooyo u noqo sida hooyadu ilmaha ugu naxariisato ninkaaga haddaad ugu naxariisato sida aabbuhu ilmihiisa ugu damqado uu u biiliyo u dhaqaalayo isaguna kuu dhaqaalayn walaashii oo kale u noqo walaashu walaalkeeda way jeceshahay sida walaasheed walaashu ay walaalkeed u jeceshahay u ilaalinayso haddaad u ilaalisa ninkaada sida walaalku walaashii cadowga uga difaaco uu uga warhayo isaguna kaaga warhayn bay ku tidhi dhul u noqo oo dhulka waxaa lagu yaqaanaa sabir iyo adkaysi buu leeyahay haddaad ninkaaga dhul u noqoto isaguna samuu ku noqonoo korku kaafu saasuu ku harayn bay ku tidhi waxay tidhi saddexdaa hore waan fahmee saddexda dambe ii macnay bay ku tidhi hooya macaanay sankiisa ilaali maxaa uga jeedaa waxay tidhi adoo udgoon mar walba ha kuu yimaado adoo carfu udgoon lahee ha kuu yimaado ninkaadu indhihiisa ilaali bay ku tiriyo marka uu ku imanayo wax ka farxiyo mooyaane wax ka caraysiiya yuunan kaa arkin bay ku tidhi dhar qurux badan ha kuugu yimaado akhlaaq wanaagsan ha kuugu yimaado dhaqan wanaagsan ha kuugu yimaado hadal wanaagsan ha kuugu yimaado dabiicad wanaagsan ha kuugu yimaado aqal wanaagsan oo nadiifa ninkaagu ha kuugu yimaado waxay tidhi dhegtiisa ilaali maxaad uga jeedaa hadal xun weligay ninkaadu inuu kaa maqlin waa taa jaamacaddu aqalku waa jaamacad hooyadu waa murabbiyad hooyadu mar waa mucallimad hooyadu mar waa warshad hooyadu mar waa murdica oo naaska ilmaha nuujinaysa hooyadu 20 ubada intay dhex fadhiisato ayay mid walba raali gelin sifada raggu ma leh laakiin haweenka sifada iska leh raggu ilmo kaliya ma hayn karaan laakiin waxay hayn karaan mataqana haweenku 20 ubaday haweenaydu intay dhex fadhiisato ka bukana dawadaysiin ka gaajoonaya cunadaysiin ka dharka u baahan dharkay ka badili ka isku kaadse kaadida ka biini maca dalika haddana odaygeegiyo hurdana quraac iyo biyaha iyo shaahay u diyaarin iyadoo sooman walibana ay intaasoo dhanna maalintii qada u karin waa yar yar daadii lagu soomay iyo kuma gaadhin waa 2 jir waa 3 jir waa 4 jir waa 5 jir waa 7 jir waa 8 jir mid walba quraacii bay siinaysaa qadadii bay siinaysaa odaygu laga yaabaa maalintii inuu saacada ka seexdo marka uu sooman yahay haddana 10 kale afurayso aqalka ku afuri doonta cashadoodii iyo afurkoogii iyo biyahoogii iyo shaahoogii iyo cuntadoodii bay haddana hooyadu diyaarinaysaa sifada raggu ma yeelan karaan hooyada uunbaa leh khilaafadii Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ayaa nin bay xaaskiisu hadal adag ay ku tidhi dana ninkii baa yiri Umar ibn Khattab haweeneydan wixii laga yeeli lahaa ka talageliyo kala tasho dana markaas uu yimid Umar ibn Khattab isaga laftigiisa aqalka dhexdeeda lagu haysto la canaananayo markaas ninkii banaanku ka maqlay Umar oo laftigiisa la haystaba wuxuu adiga hadalkii lagu lahaa waaba fududaaye hadalka Umar lagu leeyahay culayskiisa baleeg buu yiri Umar bay balaaya haysataaye ta adiga ku haysataaba la qaato ta Umar haysta waaba culays batiisu aayar buu iska noqday baa ninkii Umar baa markaa maqlay shanqadhiisii Umar uu soo baxay ninka soo socdo arkay oo u yeeray war kaale maxaad doonaysaa maxaa u socotay ii sheeg wuxuu yiri wixii aan la socdayba wax ka daran adiga ku haystay buu xarabtay da xaaskaygii baan rabay inaan kaala tashado hadalla aan fiicnayn bay igu tiraada si aan wanaagsaneyn bay ila dhaqantaa de markaan arka adiga sida lagu la hadlaayo taydii waxayba noqotay buu sheekad bay noqotay marka Umar ibn Khattab ayaa ku yiri sida aniga layla hadlay mad maqlaysa ha waan maqlaayay buu wuxuu dhageyso fariiso saddex dab oo raggu aynan hayn karin bay dumarku naga hayaan shahwada raggu waa dab ayaka naga haya buu yiri dharigu waa dab ayaka dhariga inoo kariyo raashinka inoo kariya ubadka hayntooduna waa dab inaku ma hayn karnay ayaka haya marka maalin markay nagu yar qayliyaan nagu qarxaan iska sabreenaa iska socod ku yiri dadka ajaib bay hayeen dad waxay hayeen nabi maxamed uu dhisay calayhi salaatu wasalaam asmaa bint abi bakr as-siddiq radiyallahu anhum ayaday hooyadeed aabaheed dhamaan raalli allah ka wada noqdee ayaa u timid aabaheed abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu waxay kaga ashkatoonaysaa ninkeeda Zubayr ibn Awwam waa nabiga inaabtigi weeyaan waana tobankii jannada loo bishaareeyay nin kamida weeyaan
markaa bay tiri aaba Zubayr hal layga furo oo ninka hal layga fasaxo waayo waxay tiri uu idilaa marka labaadna waxay tiri xagga gacantana waa ku adag yahay wax bixinta oo masaariif ugu filan ima siiyay tiro dharna iima iibiyo dharka igu dulgoogo ay arag bay ku tiri marka Abu Bakr Siddiq sidaas uu eegay inantiisa Asmaa lama ooyin kama nixin wuxuu ku yiri Abu Zubayr ma taqaana cid uu yahay waa Nabi Muhammad alayhi salatu wa salaam ina abtigi weeyaan waana tobankii jannada loo bishaareeyay nin kamide aaba ninkana janno u socday jannada hal la gashide iskaga sabir buuri nolosha adduunyada ay yaro koobanay wax dhis dadkaas waxbay dhisayeen dadka zamankeena ka warrama sida wax loo dhiso iyo sida wax loo dumiyo midkee Soomaalidu taqaana sida wax loo dumiyo xariifiye ku nahay sida wax loo dumiyo raggoogi haweenkoogu waxay haayeen dad wax dhisay haayeen dad wax dumiya ma hayn lana mujtamac nabi maxamed baa dhisay alayhi salaatu wasalaam nabi maxamed caalamka diyaaradana kuma soo kordhin maraakiibna sida loo sameystay kuma soo kordhin petrolka iyo naftada arlada ku jirta sida loola soo baxana kuma soo kordhin daymanka sida loo baarana kuma soo kordhin nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam hubkan wax gumaadee adduunka gaaladu ay samaysatana kuma soo kordhin nabi maxamed wuxuu ku soo kordhiyay caalamka sida dadka bini aadamka loo islaaxiyo looga shaqeeyo loo dhiso ee dadku dad wanaagsan u noqdaan buu nabigu ku soo kordhiyay caalamka dad wanaagsan buu ku baaray adduunka dad wanaagsan dad ilaahay yaqaana oo rasuulkiisa yaqaana oo bini aadamka xuquuqdooda yaqaana oo meeshay ka yimaadeen yaqaana maqsadkii loo keenay adduunka yaqaana meeshay u socdaanna yaqaana cidda samaysatay keentayna yaqaana dadkaasuu nabi maxamed adduunyada ku soo kordhiyay dad wanaagsana dad ilaahay yaqaano akhlaaq wanaagsan leh oo naxariis leh oo cadaalad leh oo kala dambayn leh oo maxabba leh oo ixtiraam leh oo isku damqanaya oo isku naxariisanaya dadka buu nabi maxamed adduunyada ku soo kordhiyay alayhi salaatu wasalaam inaga zamankeenan dad badan waxay leeyihiin horumar baa la gaadhay waa zamankii horumarka may horumar ma gaadhin bal zamankan waa zamankii dib u dhac weeyaan dib baan u dhacnay hoos baan u dhacnay hoos horumar waxaa gaadhay mujtamacii magaalada Madiina ku noolaa oo nabi maxamed uu dhisay uu tarbiyadeeyay waa mujtamacii asxaabu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam man kana mustannan falyastanna biman qad mata cidii cid ku dayanaysa buu yiri ibn Mas'ud ragga dhintay ha ku daydaan raggee Abi Bakr iyo Umar iyo nabi maxamed saxaabatu rasuulillaah ha ku daydaan dad buu nabi maxamed intuu dhisay dadkaana waxa uu nabi maxamed uu ka dhisay marka horeysa oo xagga aqeedada xagga ilaahay macrifadiisu ka dhiso qalbigoodu ilaahay ku xidhay ilaahay markay ku xidhmeen ayaka dhaxdoodina waa isku xidhmeen oo qof walba qofka kale xaqiisii buu siiyay magaalada Madiina nabigu soo galay markaas reer Madiina ku soo xoobtay nabiga saa u soo hoos fadhiisteen Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu saxaabiga yahuudiga ahaa ee quraanka ilaahay jalla wa ala uu ku amaanay ayaa yiri majmaci baan dhex fadhiistay maralii marka nabi maxamed wajigiisa arkay ayaan isri wallahi wajigan waji beena la ama habu ninkan wajigan wajigiisa markaan arkay buu nabi maxamed ayaan yiri wajigan wajigii been sheegay maaha beena la wajigiisi maaha erayga ugu horeey nabi maxamed aan ka maqlayna wuxuu noqday ya ayuha an-nas afshu as-salama wa at'imu at-ta'am wasilu al-arham wa sallu bil-layli wan-nas niyam tadkhulu al-jannata bis-salam bu nabigu yiri ya ayuha an-nas dadow afshu as-salama salanta dhahdina faafiya wasilu al-arham rahimkana xidhiidhiya wasallu bil-layli wan-nas niyam habeenkii dadku markay jiifaana kaca oo salaata leylka tukada تدخل الجنة بالسلام جنة ربك نبتقليات كقليسان أبو رسولك يلي
maka intuu nabigu joogay caqiidada iimaanka iyo yaqiinta ummadda u soo dhisay madiina markuu nabigu yimidana akhlaaqdii buu nabigu bedelayaa akhlaaqdii iyo qiyamkii waxay ku dhismayeen buu nabigu ummadda u sheegayaa cuudul mariid fukul caani at'imul jaa'i'a kiina gaajoonaya cuntaysiiya xadiiska reer madiina markay maqleen magaalada madiina qof gaajoonaya laga waayay cuudul mariida baa nabigu yidhi kiina inaga bukooda ziyaarta buu rasuulku yidhi kiina inaga bukooda ziyaarta buu nabigu yidhi hal qof hadduu magaalada madiina ka bukoodo muslimiinta reer madiino dhan qofka way soo buuqan jireen magaalada madiina qofka qariibka ku ee ku cusub waxa uu moodi jiray in qofkani magaalada madiina dadka ku nooloo dhan ay qaraabadiisii ay tahay qaraabana maysan ahayn islaamnimay ku xidhiidhinayeen oo axaadiista nabiga ku dhaqmayeen iyaku halka inagu axaadiista nabiga dhegta aan ka maqlayno ta kalena aan ka saarayno aqoontiya macluumaadkiina maanta ay noo bateen laakiin ku dhaqankii diinta nolosheenna uu maalinba maalinta ka dambaysa uu sii yaraanayo iyo kana noloshooda maalinba maalinta ka dambaysa waxa kordhayay ku dhaqanka diinta ay ku dhaqmayaan baa kor u socda iyaka نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم عبد الله بن مبارك بأورنجري آداب يرأو كوبانون هلو يعني الدين تإن يرون كبرنو أو كدقنو أيانو قباهي بدن هاي إن بدنون برنو أو عمل فلي ويلو زمن كوغا إيكا عمل فلك الدين تأيا غالبها هلك الزمن كيننا ما أنت إنك معلوماتك أي غالب نون نقدين عود المريض كي نبوك زيارة أبو رسولك يدي أطعموا الجائعة كقاجونين عنتيسية جار كدركسن بو نبي يدي جار كيسونا أي قاجونا يعني إيمان ملا أبو رسولك يدي لكي سقو دركسن جار كيس أنكور قبل حالة دي كل جيران إيمان ملا أبو رسولك يدي جار كاغا وحتر هذا وحتر ويلنين الشركاغا هكا نبات قلان ونفي النبي قفك الشركيسة جار كيسو كان نبات قلي وايان قفك إيمان كيس النبي ونفي وترتري ضاربو نبي هور مريو وحيري والله لا يؤمن إلهي بان قدرتي ما آمنين والله لا يؤمن إلهي بان قدرتي ما رمين صدح جرمركو نبي قدرتي بان لقو يري وايا نبي الله وقفكاسي وقفك جاركيس وشركيس كان نبات قلي وايان قفكاس إلهي الرسول كيسي آخر مرة مين برسولك يدي مرة مين جاركاغا وحتر ويالو حبادو تري ويدي دفي أديك كاوايين جاركاغو دبت هذا كان نبات قلان بس نصحابة نبيك كمدا أيا نبيك كويري قبل هبلايو اللي يدابا درس كيغا صلاة بدن way tukataa soon badanna way soontaa laakiin jaarkayga carabkayga ku dhibtaa buu ka yiri barkaabuu nabigu sallallahu alayhi wasallam yiri hiya fi an-nar taasi hadday sida ku dhimata naar bay ku dhex jirtaa buu rasuulku yiri ninka loo saxaabiya hadloo yiri anigana gabadh heblayo la yiraahdo dariskayga salaadeedu ma badno soonkeeduna ma badno macnaha shanta waqti tukataa رمضان كبشار رمضان ويكا صونتا لكن جاركيغا ما دبته بو عربكيدا كوما دبته كور النبي الله مرغابو نبي قول تاس جنة كو جرتا بو جنة دين في عنيدو صلاة بدن ماها صوم بدننا ماها دين في عنيدو waxa weeyaan diin wanaag waxa weeyaan min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la yaani diintaada wanaaggeega waxa lagu garanayaa ma la yaaniga inaad ka dheeraataa diintaada wanaaggeega waxa lagu gartaa oo lagu qiimeeyaa akhlaaqdaada wanaagsan baa lagu qiimeeyaa diin wanaagga qofka uu leeyahay waxa lagu gartaa xalaal cun qofku markuu yahay diintiisu qofkaas waa diin qiimo leh oo tayo leh weeyaan man ya'khudhu anni ha'ula'i al-kalimat fay'amalu bihinna أو يعلم من يعمل بهن أبو نبي صلى الله عليه وسلم شنتا كلمات أبو نبي يقول آية إيجا قادن أو كو عمل فلي أما السيب بري قف كو عمل فلا
Abu Hurayra ayaa yidhi aniga nabi Allah shanta ka qaadana ii sheeg markaa buu nabigu ka bilaabo wuxuu yidhi ittaqil maharima takun a'bada an-nas wixii ilaahay ka xarimay oo dhan ka dheerow arsaaqadu xalaal iyo xaraam bay kala leedahay wixii la xarimay ka dheerow baa nabigu yidhi dadka qofka ugu cibaado fiican ee ugu caabidsan baa noqonaya buu rasuulku ku yidhi warda bima qasama Allahu laka takun aghna an-nas arsaaqada inta rabbi ku qadaru ku qaybiyayna ku qanac qofkan dadka qofka ugu qanisan baa noqonaya buu rasuulku yidhi وحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما نفتادا waxa la jeceshahay dadka kala la jeclow qof muslima oo toosan baad markaa noqonayay naftaada waxa la jeceshahay dadka la jeclow muslim baad noqon wa ahsin ila jarika takun mu'mina jaarkaagana wanaag u sameey buu nabigu yiri oo wanaaji oo hadal wanaagsan kula hadal oo dhaqan wanaagsan kula dhaqan qof mu'min oo iimaan la markaa noqonayay wala tukthir ad-dhahika ba nabigu yiri qosolkana habadsan qosol badnidu qalbiga ayay dishabu rasuulku yiri shanta dardaar nabi maxamed baasiya Abu Hurayra oo yiri kuna amal fal dadka nasiibar buu nabigu say ugu amal falaan ama qofku amal fala gaarsiibu nabigu ku yiri ilaahay azza wa jalla han ka cabsano ilaahay hanu soo noqono han toobad keeno oo halka diintu ay dhigtay dayninkuna halka ha ka dhaqaaqin halka ku haya diintu nolosha way kala qaybisay diinta islaam aqalka banaankiisana ragga ayaa mas'uuliyadda la saaray haweenkana mas'uuliyadooda aqalka dhexdeeda weeyaan حفصة بنت سيرين رحمة الله عليها إمام دنبي ولا الله هيد قبضاس إمام محمد بن سيرين شيخ تعبير الرؤيا كتاب وحو ليه تفسير الأحلام ليلة وحو عبر جل الريوينك ولا شيء ويان حفصة مركا لبات السنة بال يري مصلى دي دول اعتكافه يسمى صلاها يكون دول تكتو سجادة دي لبا مرون بك كعيس لبا جر حاجة بني آدمكو أي ليهن مركا قبطنا بيت الميقى قليسي إيا مركا ما ركتاني أي عنتا أي عوني سنة ويكا كعيسان ليلي لبات السنة دود واحد دول فرد سجادة دي داس هدي سيحاني سنة هالكا بكور سيحاني سي هدي تكوني سنة هالكا بكو تكوني سي مر قرآن أخرساتو إيا مري تكتو لبات السنة بالليلي كمي بحن كمي دقاق المسألة دو شيدا بالكينا ويصومنتهي habeenkina qiyaam leel bay u taagantahay al-mu'minin Juwayriya radiyallahu anha ayu nabigu habeen halkii salaata leelka ay ku tukanaysa iyadoo ku tukanaysa ayu nabigu salaadii fajr buu ka dhaqaaqay deedna markaa buu nabigu miskiidka tagay xilliga barqadii buu ku soo noqday barqadu waa xilligan oo kale aan joogno weeyaan markaasuu nabigu ugu yimid al-mu'minin halkay ku tukanaysay fadhida markaa buu nabigu ku yiri ma halkan kaaga tagaad wali joogtaa ha halka xalay igaga tagtay baan fadhiyaa bay ku tiri waa meeqa saac 7 saacadood ama 8 saacadood qiyaastii halka bay dul fadhideed ku cibaadeysanaysa maray quraan akhrisato iyo maray salaatu kato iyo maray ilaahay tabaaraka wa taala ay barido iyo maray dhikri samayso iyo maray istighfaar samayso markaa buu nabigu ka naxay calayhi salaatu wassalaam لأن النبي يقول نحريس بدنا مركز كويري صدح أفر كلمات أو صدح جر أو كلية أن كعلي أي عمل كمان تودن هلك الله فرد هدي ميزان كلا لا سار لها كفضة كلا أدق من الحيد بالنبي يقول كويري سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته cibaadada ay ku daalayaan buu nabigu uga naxariisanayay inakana dharmeerka ayaa inooga naxariista dari karinta ayaa inooga naxariista waa kaas haweenkeenu subaxdii bay galayaan madbaxa baaqay ka soo baxayaan baad al-ajaa ka soo bixi
maalinta dharka aad maydhaysaana waxaa la moodaa aqalka hudheed in lagu dhex daadiyo lagu dhex iibinayo xaajaadka waqtiga ku bixinayna yareeya xaajaadka waa inaan waqtiga yareyno hurdada yaree xilliga cuntada la karinaya yaree dharmaydhiga yaree dharmaydhiga sidaan u yaraynaynaa israafka nolosheenna ka ilaalinaynaa dhari karinta sidaan u yaraynaynaa israafkaan iska ilaalinaynaa cuntadeennu ha yaraato dharkan ayaanan ku israafine xaaje intaan ubadku u baahan yihiin baa loo iibiyaa mar keliya bas maanta dhaqaalaheennii oo dhan wuxuu ku baxay raashin iyo dhar iyo daawo daawada maxaa keenay ilmuhu mar walba bukoodo waa raashin ka badan aan cunayna ayaa keenay saxaabada xaajadoodu way koobnayd laakiin cibaadadooda ayaa badnayd haween iyo ragba dhammaantood xaajaadkoogu way koobnaayeen laakiin cibaadadooda ayaa haalib ahayd iyaga marka ilaahay caza wajalla ayaa inoo nicmeeyey oo islaamnimada inagu deeqee dadkaasaa liibaanaha ku dayanoo dadkaas dad lagu daydo dadkaasaa ugu khayr badan qarnigii koobaad eeg haddaad ku dayan kari weyda qarniga koobaad qarniga labaad kaalay qarniga labaad haddaad haddana ku dayan kari weyda qarniga saddexaad kaalay saddexdaa qarni waa quruun almufadala waa saddexdii qarniya fadliga uu nebigu ku sheegay salafu saalixna waa saddexdaa qarni weeyaan waxa ka dambeeya oo dhan salaf ma aha waa atbaacu salaf baa la odhanayaa dadku hadday muslimiin noqdaan oo dadkaa saddexdaa qarni ay raacaanna waa dadkii salafka raacsanaa baa la odhanayaa ilaahay caza wajalla kuwii raacayna kuwa haynaga dhiga innaga dadkaasaan ku dayanno oo diinteenna islaamka ee ilaahayna siiye caza wajalla han ku dhaqanno ubadkeenna hanbarno ilmaheenna hanbarno ubadkeenna culummo han ka dhigno walad saddexda ajarkoodu awnasan go'aynin waa waalidka ka tegay walad saalixa iyo caalim cilm lagu intifaaca ka tegey iyo nin khani oo sadaqad jaariye ah ka tegey saddexdaa buu nebigu yidhi camalkoogu ma istaagaya wuu soconayaa waa dhimatay adigii ilmahaagaa kuu soo ducayn camalkaaguu soconayaa cilmi baa ilaahay ku baro ummaddaad cilmigii bartay ardaydaadii baa maaragtaane dad kale cilmiga sii baray halka ajarku iyakana uu soconayaa sadaqad jaariye ah aqal baad meel ka dhistoo tiri aqalkaa waqfi baan uga dhigay madrasadda iyo miskiidka ajarka waa kuu soconayaa haweenkuna diintan islaamka qayb weyn baad ka soo qaadateena qaybtiinina hadda ka qaata khadiijatu lkubra radia allaahu canha qof ugu horreeyey nebi maxamed rumeeye waa ummulmuminiin khadiija radia allaahu canha qofkii ugu horreeyey diin islaama dhaqaalo ku bixiyey waa khadiija radia allaahu canha qofkii ugu horreeyey janno loo bishaareeyey waa khadiija radia allaahu canha qofkii ugu horreeyey diin islaama loo dilay u dhintay waa haweeney sumaya radia allaahu canha bal abi bakr sidiiq radia allaahu canhu saxaabada ajilladooda oo dhan baa la yidhi sababta ay ku islaameen haween baa lahaa cumar haweeney buu sababteeda ku islaamay cusmaan binu cafaan radia allaahu canhu haweeney buu sababteeda ku islaamay dumarku diintan qayb weyn bay ka soo qaateen qaybtiina ininkuna ka qaata oo culummo soo saara oo xufaad soo saara oo ubad tarbiyadaysan oo diin la aqaladeen ha ka soo baxaan goormay ubadku tarbiyad diineed ka muuqan waa marka aqalka diini ay taallo aqalka diinta ay oolaysana ayaa ka mas-uula haweenayda iyo ninku labadaba waa ka mas-uul laakiin maadaama haweenku aqalada u badan yihiin ay fadhiyaan inta badan ilmuhuna inta badan hooyada uu la joogo sida hooyadu ay noqoto ilmuhuna yeelaa marka dambe marka tarbiyadda ubadka diin ku saleeya hadday guur tahay hadday dhar qaadasho hadday tahay hadday tacliin tahay hadday jaarka la dhaqankiisa tahay hadday qaraabada xiriirinteeda tahay waxaasoo dhan waxaa laga rabaa hooyadu ilmaha aqalka inay ku barto inantaadii baad dhisaysaa oo da'dii la guurinayay gaadhay soo egeega adu ha ku oranay adu gabadhaada u soo egeeg ninkaad u dhisayso waliba hooyadu inay wiilka u soo haasawdo weeyaan aabbuhuna inanta u soo haasaawo ceebna maaha inaad tiraahdo qof wanaagsan haddaad aragto inantaydii
ويقان قاعدة هداد ربط الديار بانكولها هنا ترى هذا عين ماها عمر بن الخطاب أبو بكر وبندق حفصة هذا عثمان بو بندقي لبدو ذي عثمان وكعذر دارتي أبو بكرنا وسكا مصي مدير كذب حفصة وحصادون النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن أنت وين نقطة أقل كهوية إن أنت وين كسكت على في كذا هدي إلهي غيرك عروس قدرنا عروس كشريعة الإسلام كوسلاية كداية معاصدة دمرو كداية معاصدة استحياء كداية اختلاط لما أقوله رجية هوانين استح قلان لما أقوله هوانكو اسكت هو فرحان wax shariicada waafaqsanaha ku farxaan lama diidano arooska rag iskii ha looga farxiyo wax shariicada islaamka waafaqsana ma aragtaanay ha laga farxiyo geeridii waa la mid guurkii waa la mid tarbiyadii ubadku waa la mid nolosha oo dhan waxa la doonay in laga daydo diinta islaamka laga qaato tacliin iyo tarbiyad kuwa diinta ku dhaqman Allah inaga dhigo insha Allah جماعات دد دعوتنا ويني مادان هلقا فايديستو ومستوراتك هلالا بخو وهلالا فريستو هوينكو هكو ددالان رغنا رغا هكو ددالان odayaashiina iyo wiilashiina soo saara oo dacwada u saara oo ilaahay dartii ha u baxaan haday islaaxaan ay hagaagaan ragu mujtamac oo dhan baa yakuna ay sabab noqon in ilaahay noo hagaajiyo laana reerka ragga ka masuul haweenku ka masuul ma hadoo ninku baanaado haweeneyduna way baanaan marka hagaaga ragga ayaa muhiim raggana waxa kaliya maanta ay ku islaaxi karaan waa inay mujtamacan ka dhaxbaxaan ilaahay dartii u baxaan kuwa diinta daneeyo ee diinta ku dhaqme ee diinta ku amal falana de Allah inaga yeelo wixii khayrna soo dhaxmarana ilaahay baa waafajiyay ha wala inoo ducayn doona marka dambe sheekha inoo khatimi doona insha Allah ururiga la joogta alla ku arday baan iska nahay ma sha Allah billahi tawfiq ducada waa isku ducaynana mar walba mar kastana waa isku ducaynaa ilaahay idinkii khaasatan hooyooyinku iyaka inay noo duceeyaan mar walba خير بعد نقول تهم إنسان سدا نوم ملاين إنسان يسكن في عن الله ينقدره وارم دعاء لسكت دعينا ويفضل بدن تهاي إلهنا إبر يبوري بريدنا ونقبل إن شاء الله آمين لهذا إن شاء الله بسم الله الحمد لله ثناء لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله والله ربي لا أشرك بك شيئا سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب يا من لا تراه العيون ولا تخالده الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الإنس والجان جميعهما واشر رحمتك على العباد اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا وجميع أقاربنا وجميع مشايخنا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على محمد في الأولين صل وسلم على محمد في الآخرين صل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ذنبنا الله داف ذنبك والدينتنا الله داف دينت الله ينوم عني دينت الله ينقو توصي دينت الله ينقو دلو دينت الله ينلا صوصار dad badan oo walaalaheena xanuunsan caafimaad sariic Allah si qof walba halku ka kurbaysan kurbada Allah ka faydo dad badan oo hooyooyinkeen oo heladeena ayaa majmaca noogu soo duceeyay yiri mid walba muraadkiisa oo macsiinay ilaahu gacanta midig ka sii qof walba halku ka kurbaysan kurbada ilaahu ka qaad dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba ilaahu noo wada hanuuni ilaahu na toosi amni iimaanka ilaahu noo ziyaadi
muslimiinta meelay joogaana muwaafaqiya midnimo ilaahu na sii dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba guur xalaal ah oo fudud ilaahu sii guur xalaal ah oo fudud oo degdega ilaahu sii ilaahu diin jacayl baa naga muuqatee waa diinteennii diintu waa diintayadii adaana siiyee ilaahu sidaa masaajidda aan u soo camirnay qalbigeegan ilaahu diinta ku camir nolosheeda sunnada nebiga ilaahu ku camir aqaladeedan ilaahu diinta ku dhaqankeega ku camir yaa allah isma hadayn karna ilaahu nahadee ilaahu amniga iimaankana noo ziyaadi amniga iimaanka ilaahu noo ziyaadi gaalada makrigooda ilaahu gudahooga ku celi muslimiintana muwaafaqiin midnimo ilaahu sii ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله